waxaa maanta magaalada Kismaayo lagu qabtay xaflad lagu abaarmarinayay ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartan aqooneedkii bisha Ramadaan kaas oo u qabtay Jubbaland TV arday ka kala socoto deegaanada uu ka kooban yahay maamulka Jubbaland waxa xafladda soo agaasimay wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland xafladda oo si arsara loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid yihiin madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere wasiirka warfaafinta iyo tiknoolajiyada dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Axmed Handal odayaal dhaqameed haween iyo bulshada rayidka waxaa munaasabada lagu qabtay hoolka Wamo Garden ee magaalada Kismaayo xafladda ayaa waxay ahayd mid shahaadooyin lagu gudoonsiinayay ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartan cilmiyeedkii bisha barakeysan ee Ramadaan lagu weyneynayay oo uu qabtay TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland waxaa kaalinta koowaad tartanka ka galay xaafadda Guulwade kaalinta labaadna waxaa galay xaafadda Calanley halka kaalinta saddexaadna ay gashay xaafadda Farjano waxaa sidoo kale halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyay shirkadda Hormuud iyo jaamacadda Kismaayo oo kaalin mug leh ka qaatay tartanka iyo wariyaashii heeganku ahaa inay tabiyaan xilligii uu tartanka socday waxaa ugu horeen munaasabada sharaxaad ka bixiyay tartanka iyo marxaladii kala duwanaa uu soo maray agaasimo ku-xigeenka TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Jaamac Axmed Cali Joofane 10kii bishii Ramadaan ee aan ka soo gudubnay ayaan bilownay tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa aqoontooda ku loolamay 14 tartame oo 7 kamid ah ay ka socdaan gobolka Gedo halka 7 kalena ay ka socdaan gobolka Jubbada Hoose 7 ka socota gobolka Gedo waxay ahaayeen Garbahaare Doolow Luuq Ceelwaaq Baardheere Beled Xaawo iyo Buurdhuubo 7 ka socotay gobolka Jubbada Hoosena waxay ahaayeen Afmadow Doobley iyo 5 xaafadood ee magaalada Kismaayo ee kala ah Guulwade Calanley Farjano shaqaalaha iyo Faanoole maadaama aysan xor wada ahayn degmooyinka iyo magaalooyinka Jubbaland loona baahan yahay in dhalinyarada loo sameeyo isdhexgal iyo aqoon kororsi waxaan isticmaalnay magaca tartame maadaama uusan jirin halbeeg kale oo loo isticmaali karo waayo waxay isugu jireen dadka tartamay kuwa ka socda degmooyin kuwa ka socda xaafado ka tirsan Kismaayo iyo kuwa ka socda magaalooyin muhiimadayadu ma ahayn in aan isku dheerarino deegaanada iyo degmooyinka kuna aadino xaafado ay ka madax taagan yihiin ee waxay ahayd in dhalinyarada kala joogto goobahaas kala duwan ee aan soo sheegnay aanu saamaxno inay ka qayb galaan tartanka sidaas darteed waxaan isticmaalay magaca tartame dhammaan ka qaybgalayaashu waxay si asluubaysan oo asluub iyo xushmad iyo ixtiraam iyo dulqaad uu ku dheehan yahay uga qayb galeen tartanka iyaga oo muujiyay dadaal dheeri ah waxaa sidoo kale dhankooda goobta ka hadlay oo boogaadiyay tartankan loo qabtay ardaydan gudoomiyaha ururka haweenka Jubbaland Batraan Maxamed Cabdulle iyo afayeenka salaadiinta Jubbaland ugaas Cumar Xiiray beerdayaha Jubbaland hawshii uu qabtay wasaaradihii kala duwanaa halkan laga xusay laakiin waxaan ku faanaynaa oo mar walba aan ku faanaa annagoo guryaha naga joognaan kala soconay tartanka aad baa loogu dhabarqa ayaa loogu maataqana loogu dulqaatay beeradayaha Jubbaland waxaan leeyahay hawshiisa kuwa waaweyn oo guyaal badan ka horeeyay ayuu ka hormaray marka anigu waxaan naan gaar ah siinayaa inkastoo wasiiradii iyo dadka ka qayb qaatay loo mahadnaqay anigu waxaan maanta awoodeyda saarayaa ama aan afkayga u badinayaa beeradayaha Jubbaland iyo ragga ka shaqeeya tartankii ay qabatay wasaaradda warfaafinta oo xaafadaha lagu tartansiiyay inay xaafad ku guuleysatay xaafadna kaalinka labaad gashay xaaladda kaafad saddexaad ay gashay waa nimco ilaahayna siiyay weeye waan ku faraxsanahay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdinuur Cali Aadan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Axmed Handal ayaa dhankooda bogaadiyay tartankan waxayna sidoo kale shaqaalaha Jubbaland TV ku amaaneen shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed ka wasaarad ahaan waxaan halkan u soo istaagnay inaan damaanad qaadno xafladan inaan ka damaanad qaadno tartankiisa xiga inaan u ballan qaadi doono inaan gudoonsiin doono hadduu Rabbi idmo scholarshipyo aan u diri doono degmadii ugu sareysa ee ku guuleysata hadduu Rabbi idmo tartanka sanadka soo socda sidoo kale waxaan mahad ballaaran aan halkan uga soo jeedinayaa TV-ga Jubbaland iyo raadiyaha howlwadeenadeeda kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si gaar ah
agaasima ku-xigeenka madaxa wararka dhammaan warbaahinta Jubbaland ragga ka shaqeeya oo gabdho iyo wiilba leh runtii waxaan dhihi karaa waxay ku shaqeeyaan xilli adag waqti adag si wadaniyad leh Soomaalinimo leh kalgacal leh ayay ku shaqeeyaan marka waxaan leeyahay amaan ayaan u soo jeedinaynaa ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere waxa uu shahaadooyin gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka galay tartanka iyo shirkadda Hormuud jaamacadda Kismaayo iyo waliba waliyaashii gacanta ka geystay qabsoomidii tartanka intii ka soo shaqaysay ee ugu horeeyo TV-ga Jubbaland amaan iyo mahadcelin baan soo jeedinayaa dhammaan intii gacan ka geysatayna waxaan soo jeedinayaa in amaan waxaan kaloo amaan soo jeedinayaa inta munaasabadan ka soo qayb gashay waan baleynayaa tartamayaasha kuwa guuleystay iyo kuwa ayana walaalood waan baliyay guusha ee kala tartamay hambalyo Sabriin Sahal Maxamed raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Kismaayo.